وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو قول وعن عدوك وابتم نولو الوناكسن ايو برواقو نبت لقو وداقو اكوار وادنكين قول وعن عدوك وابتم نولو الوناكسن ايو برواقو نبت لقو وداقو أكوار ودنكين ودنه تركين ورابنا يديقو أنكوار دينا قرياش شرفتنا sida wanaagsan caawo noogala soo qayb galay bandhiga buugaan ugu magac daray joogaha dirsooca la dagaalaha qabyaalada daashatay dunjiga Soomaaliyeed inta markii laga soo tago waa maxay joogaha dirsooca buugaan ugu magac daray buugaan joogaha dirsooca waa buug ka hadlaya qabyaalada iyo in la isfaquuqo markii uu horeeyay ugu dhashay waxa ahayd buugaan 2017 markii xalka loo fadhiyay oo degmadan Gaalkacyo xogaa khilaafkii ka jiray soo afjiray ugu dhashay laakiin waxaan bilaabay 2018 bishii shanaad waxaan oo soo idlaamay 2021 bishii 11aad meelahaas buu ku soo dhamaaday ilaa muddo 4 sano oo bilaa wax saas buu socday waxaa ku mahadsan Allah subhanahu wa ta'ala inoo ogolaaday in caawa halkan uu yimaado run ahaantii aad iyo aad baan u taageeri jiray baan ama u jeclaa ama aan ugu haweenaa inuu bulshada mar hor yimaado waxaan rajaynayaa caawa inuu hor yimid sidoo kale buuga markii laga soo tago hordhaciisa iyo preliminary pageskiisa markii laga soo tago waxa uu ka kooban yahay ilaa cutubyo badan oo 6 iyo in ka badan waxa uu sameeyay silsilada laga soo bilaabo qabyaalad waxa ay tahay ilaa halka ugu dambeysay laga gaarayo silsilada buu sameeyay oo waxaan ugu talagalay qofka moog oo maqlay ereyga qabyaalad meel ka jirtana oo aan aqoon inuu horta bilaabo waxa ay tahay ogaado halkeedana uu gaaro halkeeda meesha ugu dambeysay waxaan ku reebay waxaan cutubiyada ugu dambeeyay hadaan taabto waxa kamid ah dhaxalka qabyaalada iyo xalka qabyaalada inta uu horeysay waan idin deenayaa idinka arki doon marka akhrisatiin waxaan rajaynayaa inaad si saa'id uga boga doontiin dhaxalka qabyaalada baan ku hormarayaa labada cutub aad iyo aad ugu dambeeyay dhaxalka qabyaalada waa wuxuu ka hadlayaa qabyaalada wax laga dhaxlo laba qodob baan u soo qaatay oo kala ah kala qaybsanaan iyo qaran la'aan iyo kala qaybsanaan waa Soomaali ahaan marka ku beesgareeyay waxa ay ka dhaxashay qabyaalada koo qaran waa ku weynay mid walba wuxuu tilmaamayaa waxaan u soo qaatay nuqul walba aan ka hadlayo ama paragraph ama laba paragraph ama saddex paragraph kasto aan ka hadlayo tix ku haboon oo munaasib ku ah baan ku soo qaatay gabar waxa tilmaamaya 30% buugaan waa suugaanta 30% waa suugaan وتحية تراب سوجرا وسجان ولا أنت بدن أنا وين أريا سجان تعبديو هسه واحد سوجرا مانسو يشيفتو يو قبي دير متكلم بعد وكلا قريب سنة أيضا وأن أركضنا قلب كاس أتوب كاس كنا دحالك قبيلة وحنقول سوقات الشركة دير وإلى الله بيتمن بجاريسة إنك بدن شركة سوحة لي جيلي ليجو كداتي جيلي ليجو كداتي والله مننا صاحبه وحول isku darsaday ka bilaabanaysa laba shakhsi ka bilaabatay reer chief ay gaartay qabiil ay gaartay dawlad waxay gaartay gobol ay gaartay deegaan bay gaartay gobol bay gaartay ilaa ay fagaatay sheekadaas markuu ugu horeyso akhrisid waa la yaabi doontaa waa sheeka rag khubara ay curiyaan calashaan markuu ugu horeyso waa la yaabi doontaa marka labaad waa ku qosli doontaa marka ugu dambeysana hadii qof wadaniga aad tahay aad baa u qeyran doontaa meesha ay taabanayso iyo halka ay gaarsiisan tahay halkaas cutubkaas marka intaas ka soo taabtay waxa ku cutub iyo halka qabyaalada
waa xalkii gabagabayntii waxa ay tahay qabyaaladda buu xal u raadinaya asna waxaan ku soo koobay 3 qodob walba waxaan ka wadaa 3 cutub ciwaan hoosaad ciwaan walba qodobadiisu hoos tagayaan 3daas ciwaan hoosaad koo waxa weeye waxbarashada la tayeeyo wacyigelin joogta waxbarashada la tayeeyo iyo wadaniyad oo la beero 3daas waxay asaas u yihiin xalka qabyaaladda koo wacyigelin joogta in bulshadii laga wacyigeliyo horta barnaamijkan la yiraahdo isreeraysiga markii laga wacyigeliyo waxbarashada la tayeeyo dabadeedna haddii alla ku roon yahay wadaniyad la beero oo bulshada la baro wadaniyada waxa la yiraahdo deegaankeena ku cusub mawduuca uu ka hadlayana waa mawduuc ku cusub bulshadeena laakiin ay bulshadeenu si weyn u adeegsato ayaan wali laga hadlin anaga ka maktabad ahaan dhalinyarada maktabada ku midaysan iyo dadkana taageera buugta maktabada buug ma iibino kaliya waxaan bixinaa inaan waqtigeena gelino in bulshada lagu wacyigeliyo akhriska lagana wacyigeliyo bulshada inaysan waxba akhrin oo ay biibtooyinka fadhiyaan shaqadeena ugu weyn waxay tahay inaan bulshada akhriska ku wacyigelino marka u horeysa buuggaas waa buug ka hadlaya waaqic aad iyo aad u mudan in laga hadlo oo dhiirigelin iyo iskugu jira in muxuu ahay waxaas jira laga fogaado bacdama xoogaa Soomaalida dhexdeeda ay xagga qabyaaladdu ay yeelatay magacyo kala duwan loo bixiyo shaatiyaal kala duwan lambar la siiyay magacyo loo bixiyay in la tirtirana muxuu ah buugaas ka hadlayo oo dadka bulshada laga qabto sababta wax sinaan lagu waayay laguma helo muxuu ahay qoqob iyo qoloqolo iyo qayb laguma helayo buugaas waa buug diyaarsan oo aad iyo aad u tafaftiran oo muxuu ahay meelo badan laga fiiriyay caawimaad badan iyo meelo badanna muxuu ahay u mudnaa xagga qoraalkiisa بعدما قالوه قايشيس ay tahay xagga qoraalka iyo in buugaas tafaftirkiisa iyo muxuu ahaa soo diyaarsan bulshada loo soo bandhigo waxa kale bogaadinaynaa maktabada guud ee magaalada Gaalkacyo inaynu ka soo qayb galno buugan qiimaha badan ee hal abuur abaan xalana waxa weeyaan waqtigiisa iyo maankiisa uu inoo galiyay aadaan ku hadla waqtigana soo koobo midowga ardayda jaamacadda Gaalkacyo hal arrin baan waxa weeye baraarujinaya horta koow waxa waaye buugga in dhammaan asxaabta meesha fadhida ay wada gataan si ay u ogaadaan qabyaaladda dhibka ay leedahay si ay u ogaadaan abwaan xalane runtii aad iyo aad baan ugu baraarujinayaa inuu dhiirigelinayo qodbada hadal badan oo baahna xalana caawa 4 qodob u baahan yahay sida aniga aragtidayda qodobka koowaad oo soo dhaweyn dhiirigelin dhaqaajin iyo daadid macnaha soo dhaweyn waa soo wada dhaweynay waa ka soo wada qayb galnay dhiirigelinna insha Allah taala waan ula taaganahay oo waa inaan buugta qaadana dhiirigelin oo ah dhaqaajin waxa la aadeen wixii markaas asaga kabi kara oo xaaladiisa haddeer socodsiin kara wax meesha yaalo qof walba inuu ka qayb qaato dadbadna waxa in la helo dad wixii ku soo noqdo abwaanka la taakulayn kara haday jaamacadaha haday tahay ganacsiyaasha meesha jooga iyo qof walba oo wax gala oo halkan jooga insha Allah taala inuu dadbidaas oo helo aad muhiim u tahay midowga ardayda jaamacadda Modern ee faracada Gaalkacyo insha Allah taala soo dhaweynta waan kala qayb qaadanay xalana garabkeenna waa yahay dhiirigelintana waan ugu hambalyeynaa dhaqaajintana insha Allah taala afka ardayda jaamacadda Modern waxaan ku qaadi doonaa 10 buug oo ay ardayda jaamacaddu qaadi doonaan insha Allah taala markaan qaadna kadibna jaamacaddu maktabad bay leedahay maktabada guud oo Gaalkacyo bulshada Gaalkacyo dhan baa iska leh intaba insha Allah taala waan kala gaarsiin doonaa si guud marka laga soo tago buugan kaliya akhriska iyo qoraalku muhiimadda ay leeyihiin sheekha ka hadlay waxay ahaayeen waxyaadii islaamku marka koobaad ba ay baraarujisay si gaarana buugan iyo macnaha waxaan baarsayna ayadana kala tago muhiimad kala to abwaanka waa dhiirigelinaynaa waxaan leenahay maada ka gaarto akhrisku asna muhiimadiisu waa mid sheekhu taabtay sidoo kale tana kamid ah waxyaalaha koriya nafta bini aadamka oo kor u soo qaada bulshada wacyigeeda ayagana siyaadiya waxaan soo jeedinaynaa
in la badiyo akhriska sidoo kale tan la badiyo qoraalka sida kan caawal soo bandhigayo kaleeto laakiin waxay dhacaysaa marka qofka wax soo bandhigay wax soo hawl abuuray la garab istaago loo camiro wixii uu keenay la akhriyo laga faa'iideysto ayay u tahay muhiimad gaar ah ama kuwa kalena ay ku dayanayaan soo bandhigayaan waxaan soo jeedinayaa in dhalinyarada dhammaan ay akhriska badiyaan markii ayagu akhriska ay badiyaan waxa ka dhalanaysa in qoraalkiina ayaga markaas uu ka yimaado waxaan qayb ka noqonaynaa dadka yaboohaya inay qaataan buugaagta hadduu ilaahay idmo waxaan qaadan doonaa ama u qaadi doonaa anoo kaliya go'aankaas kasii qaadanahaya laakiin aan kala tashan 20 buug oo maktabadda jaamacadda iyo maktabadda guudba aan u kala qaybi doono hadduu ilaahay idmo aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan ku hadlayaa afka maamulka jaamacadda Modern waxaan rabaa marka hore inaan idhaahdo xaalane oo ka tirsan ardayda jaamacadda Modern laguna yaqaano kuna sifoobay ardaynimo akhlaaq wanaagsan arday aqoontiisu heer sare tahay mataqaanay haddana soo bandhigay buugan aadka u qurux badan caaway waxa ay noo tahay haddaan nahay bahda jaamacadda Modern farxad ayay noo tahay noo soo yeetay waxaan leenahay abwaane mar walba waxaan nahay garabkaaga waxaan leenahay halkaas ka sii wad haddaan nahay dhammaan bahda aqoon-yahanada si wada jir ah inaan u dugno dirsooca haddii qof walba oo aqoon-yahan ah guriga uu ka soo kacay dad buu uga soo tegay meel kasta uu joogo dad baa jooga qof walba oo aqoon-yahan ah haddii uu isku hawlo inuu ugu dirsooca waxaan filayaa meesha markaas la joogo ama meel walba uu markaas uu gaaro in mataqaanaa dirsooca uu khad ka baxayo waxaan leenahay abwan waa mahadsan tahay insha Allah tacaala waxaan ballan qaadi doonaa inaan dugno waxa loo yaqaano dirsooca ama mataqaanaa is-cunsuriyiinta kaliya kulay ma ahan cunsuriyadu in reero kaliya ma gali karto dhan walba ay gali kartaa jaamacadda Modern oo garab istaagaysa abwaanka rabtana bulshada inay kala qayb qaadato dirsooca inay dugto waxa ay ka qaadaysaa abwaanka buugaag dhan 25 buug oo gaaraysa mataqaanaa dhigi doono maktabadda jaamacadda ay leedahay si ay uga faa'iideystaan cid walba oo aqoon-yahan ah ayna kaga akhristaan maktabaddana waxaan u qaadi doono ama waxaan siin doonaa insha Allah tacaala gadaal baan ka sheegi doonaa haddii la yiraahdo madaxda ayaan shir gooni wada qaadan doonaa billahi kariim marka waxaan rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed inuu u hiilin doono qalinkiisa bulshada iyo qarankiisa inuu qalinka ugu hiilin doono mowduuca uu ka hadlayna waa mowduuc runtii aad loogu baahan yahay oo ma aragtay dirsooca iyo haybsooca iyo wixii la mid ah ma aragtay bulshada inagu sideedaba waxaynu nahay cunsuriyad ma naqaano iyo Soomaali waa hal qoys iyo ereyada la midka markaynu meelaha joogno laakiin markii hoos loo si dhaadhaco runtii wax badan baa jira wax badan baa dahsoon iska habeena waxaan rabaa maamulka dugsiga sare SWL oo aan afkiisa ku hadlayo iyo maktabadda dugsiga waxa ay xalane ka qaadaysaa 10 buug insha Allah runtii buugan horta waxa uu sheegayaa qabaa'ilada wuxuu ka hadlaa qabiilku si xun mataqaan si fiican oo u taabanaya waxtarnimadiisa marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisu noogu sheegay wuxuu naga abuuray lab iyo dhadig ka gadaale wuxuu naga dhigay mataqaana koox ama shacab kadibna qabaa'il uu naga yeelay maxaana looga sameeyay intaas aqoonsi bas in la isku garto laakiin anaga waa ka duwanahay waxaana gashay qabiil waa ka tagnay qabiiladaana gashay marka in laga soo noqdo wuxuu sheegayaa qodobkan dastuuriga farqadiisa koowaad iyo farqadiisa labaad waxay ka hadlayaan shacabka reer Galmudug dhammaan inay u siman yihiin xaqa nolosha xaqa cadaaladda sinaanta intaba waa ay ka siman yihiin mowduuca ka hadlayana runtii mowduuc aad u muhiim ah weeye kana mid ah cudurrada dib u dhac ku keenay ama diishaday dadkeena Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Mudug aan ognahay xaaladihii kala duwanaa oo soo maray walow hadda meel fiican u marayo waa cudurka la yiraahdo qabyaaladda
qabiil iyo qabyaalad waa kala laba sida buugga uu sheegayo qabiilku waa midka ilaahay uu noo sameeyay shucuubta iyo qabiilada kala duwan ujeedkuna uu yahay tacaaruf inaan isku baranno laakiin aysan ahayn ujeedkooda inaan iskugu faano inaan maaragtay isku midabta koorno inaan niraano kana laandheera ee kana laangaab ah ilaahay agtiisana ilaahay aadam iyo xaawo naga abuuray qofka bini aadanka waxa ugu horeeyo uu ku tartamo oo naftiisa ku hormariyo waxa waaye waa aqoontiis qiimatul abdi waxa waaye uu leeyahay waxa waaye wuxuu yaqaan waa marka koobaad waxaan ku faraxsanahay walaalkeen bandhiga uu soo bandhigay أنا waxaan ka mid ah macallimiintana waa ka mid ah in badan aan macallin ah haddana dadka wax qorana waa ka mid ah inkastoo luqadda aan wax ku qoraa ay luqad kala tahay luqadda Soomaaliga inaan ku qorana waa rajeynaa insha Allah qorida qofku inuu wax qoro ama qoraalku waa kala duwan yahay hadda bachelorkana buuga la qoraa masterkana buuga la qoraa kuwaas aan qorna markii laga reebo buugaagta adiga ka soo baxo aan qoraysid way kaaga mas'uuliyad badan tahay buugga lagu ishraafayo walidaalika waxaan xasuustaa oo aan ku xasuustay ahbaabta meesha soo istaagtay kelimo anay ugu dhacdaan ku soo xasuusto oo ah hamiina 4 saac waxaan u kacay buug macnaha aanay qoray oo iga soo go'ay 4 saac waxaan macnaha 4 jeer aan kacay sababtoo ah macaanidii aan u baahnaa ayaan xasuusanaa كمبيوتر دارا وجرينا كدي مركو حيقول صدق مثلا معاني كله قف كستا وحقره مركو قف كستا وحقره خرط مركو كوبد ياو أديجسا وعلى قدم لنفسك قبل الذهاب نفسك يدهان نفط هذا خرمري أنت سنفتك عبيه نفط هذا واحد كل هذا معمول كده تصرفات كده أنت عادي قعنت هذا كشرت مركو قعنت هذا كبر على اسكمريد مركو الدنيا ده أنت جوكتي aan wax ka faa'iidno maxay dhahay buugga waxa ku arkay maahmaayo badan oo qurux badan oo waarimay sida waa marata waxa ka haran oo macaani iyo cilmi iyo wax umada soo kordhi